السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذا سلام دباتين خير بيد رجينيا ولكن ويفهد شاكل ما توحر إلى وذا جوار رنتي عاد مهم بدن واهين الواحد بدن كوج عنه ما دام هذا نتكلم الصومال إنه هذا سفر بدن أو صعب بدن أنت بدن واحد قانا دتك دو وصعد بدن إنه هاي لنا أخباراتك وحربي إلى إذا وذا جوار نيوز وين أو رنتي أدوك لنا أنا جهل لعي وكصاب صن إن أرن أشياء سووا كلام dowladda Faransiiska iyo dowladda Ingiriiska oo ku saabsan sidii dadka qaxoontiga ah ee soo galaya wadankan Ingiriiska loo joojin lahaa marka ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Ingiriiska ninka Hindiga ee yiraahdo Rishi Sunak toddobaadkii dhaweyto wuxuu la kulmay wakiilka ka qayb galaya shirka cimilada adduunka ee ka dhacay Egypt ama Masar wuxuu markaa la kulmay madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron marka wuxuu ka wada hadleen isna uu hadlay ra'iisul wasaaruhu wuxuu la hadlay Sky News marka wuxuu sheegay in dadka ay ka wada hadleen madaxweynaha Faransiiska in dadka qaxoontiga ah ee soo galaya wadanka Ingiriiska dhinaca ka soo dhinaca channelka British channelka ee u dhaxeeya Faransiiska iyo Ingiriiska dhinaca badda yar dad badan oo qaxoontiga oo ka soo tallaabaya oo soo wadanka Ingiriiska in arinta uu ka codsaday ciidamo badan la diro dhinaca xeebaha iyo dhinaca dadka qaxoontiga soo galaya si dadka loo joojiyo wuxuu sheegay ra'iisul wasaaruhu in 40,000 oo qof oo qaxoontiga oo asir bay soo galay wadanka Ingiriiska ay ka soo galeen dhinaca badda marka wuxuu sheegay arinta inay ka wada shaqeynayaan wuxuu Faransiiska ku qanciyay shalay iyo darabna waxa joogay wadankan magaalada Paris asbada Faransiiska xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee wadanka Ingiriiska wuxuu la kulmay dhigiisa wadanka Faransiiska wuxuu sheegay in dadka qaxoontiga ah ay joojin doonaan ay arinta kala hadleen joojin doonaan marka laakiin soo hadalkiisa wuxuu raacay in wixii faahfaahin kala badan ay dib ka sheegi doonaan marka wali wax kale oo faahfaahin kale ma sheegin